milatariga Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ayaa saaka aroor hore howlgallo saf ballaaran ah ku qaaday deegaano iyo tuulooyin dhowr ah oo dhaca bariga gobolka Shabeellaha Dhexe sida Burdacar, Masaajid Cali Gaduud, Nuur Dugle, Maxaasiciid, Qaahiro iyo tuulooyin kale oo dhaca isla bariga gobolka Shabeellaha Dhexe waxaana milatariga isgarabsanaya dagaal muddo socday uu ku qabsaday duleedka degmada Ruungood oo qiyaas ahaan in ka badan 100 kiiloomitir waqooyi bari kaga beegan degmada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha Dhexe. wararka laga helayo deegaanada iyo tuulooyinka laga sameeyay howlgalka safka ballaaran ah ayaa sheegaya in ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM si buuxda gacanta ugu hayaan degmada Ruungood iyo guud ahaan tuulooyinkii saaka ay howlgalka ka fuliyeen. lama oga khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay dagaalkii maanta ka dhacay duleedka degmada Ruungood. welina ma jiraan hadal ka soo baxay saraakiisha ciidamada dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ka oo ku aadan howlgalka ay maanta ka fuliyeen bariga gobolka Shabeellaha Dhexe. Ismaaciil Cabdulle Sabriye, Universal TV, Jowhar.